kulan aan caadi ahayn oo golaha wasiirada ay ku yeesheen Muqdisho warbaahintana ay dibajoog ka ahayd ay goluhu waxay ku taageereen dhiibista qalbi dhagax ee dawladda Itoobiya loo gacan geliyay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka oo warfidiyeen ku aqriya go'aanka xukuumadda ee dhiibista qalbi dhagax ayaa wasiirku waxa uu sheegay in Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax uu ahaa dagaal ooga ka tirsan jabhadda ONLF xiriirna uu la lahaa argagixisada sida uu hadalka u dhigay dood dheer kadib golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen arrimahan kow in siyaasadda dawladda federaalku ay tahay mid ku qatanta iskaashi dalalka geeska Afrika ah xoojinaysana nabadgooda noolaanshaha mandaqadda xoojinta dhaqaalaha iskaashiga iyo amniga isla markaasna jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya loo ogoleyn in jabhado hubaysan ama kooxo argagixiso ah ay gabaad ka dhigtaan labo golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shakhsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhadda hubaysan ee ONLF isla markaasna uu falal lid ku ah amniga dalka oo ka dhex waday geyiga Soomaaliya iyo mandaqadda iskaashi dhowna la lahaa kooxaha argagixisada ee al-shabaab dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay inay kaalin firfircoon ka ciyaarto wax walba oo ka qayb qaadanaya nabadeynta mandaqadda si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka dawladda federaalka Soomaaliya waxay garowsan tahay doorka ciidamada wadamada dariska ah ee Djibouti, Kenya, Ethiopia, Burundi iyo Uganda ay si hagar la'aan ah uga garab dagaalamayaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed si dalka loogu soo dabaalo xasilooni waarta afar goluhu wuxuu mar kale hoos ka xariiqay heshiisyadii iskaashi ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka Itoobiya ay kala saxiixdeen sida heshiiskii 7 Juun 2015 iyo heshiiskii 2 May 2016 oo tilmaamaya in dan looga soo wada jeesto arrimaha amniga iyo nabadgooda noolaanshaha mandaqadda heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan kood in cadawga labada dhinac ee al-shabaab iyo jabhadda ONLF ay qatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashadaan si wada jir ahna ula dagaalamaan shan waxa reeban isla markaasna mamnuuca in jamhuuriyadda Soomaaliya gudaheeda ay kooxaha argagixisada iyo kooxaha hubaysanba ka dhigtaan gabaad ay dagaalada iyo colaadaha ka horinayaan oo ay kaga duulaan wadamada jaarka ah lix dawladda federaalka Soomaaliya waxay ka qaadi doontaa tallaabooyin cad oo sharciga waafaqsan cid kasta oo isku dayda inay jabhado hubaysan ka dhex abuurto dalka gudihiisa ama ay taageeraan kooxo argagixiso ah iyagoo maleegaya falal lid ku ah dalka gudihiisa ama iyo wadamada jaarka ah toddobo qodobka ugu dambeeya xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay dib u eegis ku sameynaysaa heshiisyadii ay dawladdii hore gashay si qabyatir loogu sameeyo wixii daloolooyin ah ee ka jira haddii ay jiraan loona waafajiyo habraaca sharciga ee dalka dhammaan go'aanka xukuumaddu ay ku taageertay dhiibista qalbi dhagax ayaa dad badan waxay ku saadaalinayaan in dawladdu ay ku dhuminayso taageerada bulsho badan oo dhiibista qalbi dhagax u arkayay inay tahay khiyaano qaran waxaana sidoo kale fajac iyo layaab ay ku noqonaysaa ehelada Cabdikariin qalbi dhagax oo qaarkood baaqaan ay dawladdu u direen maalmo ka hor taasaanu ka mudaharaadinaa dalabkanaguna waxaa weeye Cabdikariin hala soo celiyo dalabkanagu intaa weeyaan dawladda ka codsanayno waxaana lagu yiri waxa la fadhiyo seyr wasaaraha waxaana lagu yiri wafti Soomaaliya ka socota la fadhiyo annaga daraankanagu wuxuu lahaa maanta Soomaali way midowday marka ayadoo saa tahay waxaan ugu xigtay Cabdikariin Sheekh Muuse waa la dhiibay annagii daraankanagu waa isqaybino qolana waxay tii ma dhici karto qolana waxay tii Soomaali way ka dhalataa madaxdeeda saadaasaan ahayn walaal annaga Cabdikariin Sheekh Muuse waxa la dhiibay isniintii in Muqdisho lagu jirdilay oo lagu jirdilay beesha fiisada Itoobiya loo sameeyay oo markuu safaaradda soo galay uu dareemay Cabdikariin in la dhiibay xaqiiqatan muxuu ilaa anigu muwaadin Soomaaliyeed baan ay ummadda Soomaaliyeed saah ila dhaqmin dilya nololba waan galaay waa la jirdilay waa la kaxeeyay rag Soomaaliyeed oo madax sheeganayaan kaxeeyay aeroboortka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyay raggii Soomaaliyeed dhan meel buu iska saaray Uganda isbaa loo dhiibay xalanaana lagu jirdilay Cabdikariin Sheekh Muuse asagoo muwaadila talay Soomaaliya Abbas Hussein Saab TV